faraxsanahay horta waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha noo imaaday iyo martida sharafta loola socotay mideeda kale waxaan mahad u celinayaa xildhibaanada Kenya waxaan mahad aad ugu celinayaa dadka ka soo qayb gala shirkan dadka shacabka inta fadhiyo oo kibaanda qabeen Jubbaland waa dadka soo doortay aniga horta وجياشن كل ونركع كامبين كما كان كجرا بدي dadka waan ka taaya wajigooda maamayaashana waan u mahad celinaya waxaan rabaa arrimahan inay sabka hore ay ka galaan oo gadaalna lagu reebin yaan inagana mideeyahay sabka hore ka qabsada siyaasaddan hadda bilaabanaysa insha Allah waxaan rabaa inaan ii sheego aniga reer Jubbaland baan ahay waxaan ka soo jeeda magaalada la daabu aalay Salagle marka insha Allah arrimaha aan ka hadlayno waa arrimo hoose oo inaan gacan siiyo hadii dawladda Kenya ay ogashay hadday ogoleen frontline bankay arrintan insha Allah inaan arrintan aan galno anagoo madaxda gaaris laga soo doortay Jubbaland marka waxaan idin soo jeedinaya aniga markii hore dadka markay Jubbaland ka hadlaayeen waxaan u maleeynay wax qood magaaladaas ka reeraadu insha Allah laakiin hadda madaxweynaha dadku uu sheegay waxaan arkay diversity inay tahay oo dawladda cid kasta ku jirto inay tahay Jubbaland iyo madaxweynaha waxaan leeyahay annaga xildhibaaniinta Kenya gacan baan siinayna arrinta waxaan rabnaa inaan hoos aan ila guda galno oo wax nila qabanno insha Allah communication waa important wax in la isku sheego way fiican tahay madaxweynaha markuu dhulkan u soo galo waan ognahay anaga reer Kenya wada dadka xildhibaankan waa naloo sheegay qofkii imaada madaxa meeshan sidaas baan ku ogaada laakiin wax qaas ahaan oo noo sheega malaha arrintan waxaan rabnaa communication inuu jiro dibka Jubbaland haysto waa dibka gaaris haysta qaas ahaan gaarisa iyo wajeer runtii marka in wax saas naloo socodsiinayna communication kana waa important waxaan leeyahay insha Allah anaga waan isku dambeynaa waan kala joognaa